makana waxa ay ka soo xiranayaan xajka Makka laakiin umrada waxay ka soo xiranayaan Tanciim meel kasta oo ka baxsan xuduudda caalamka hadii kale reer Jiddana waxay ka soo xiranayaan Jidda oo ay ka soo xarmanayaan waxa ku waajibaya qof kasta oo soo mara mawaaqiidaas una socda xaj iyo umra inuu ka soo xarmado qofkii ka soo gudba si uu la kaca isagoo aan soo xarman waxa uu ku laazimaya inuu dib ugu laabto oo ka soo xarmado hadii kale waxa ku waajiba inuu neef ari ku gowraco Makka una qaybiyo fuqarada reer Makka marka aad miiqaad ka timaado hadii ay ku suurto gasho waad meeranaysaa oo si wanaagsan ayuu qofku isu daahirinayaa dabadeed waxa uu xiranayaa dharkii ihraamka isagoo markaasi is arfinaya ama is udginaya hadii ay suurto gal tahay marka dabadeed ayuu dharkii ihraamka xiranaya oo ragga laga rabo laba go oo nadiif ah oo cadcad dumarkana waxa ay xiran karaan wixii ay doonaan oo dhara waxaase laga doonayaa inay haweeneyda muslimadda ay ku dadaasho asturnaanta xaajigu waxa uu niyeysanayaa umrada isagoo la labbayk allahumma umrah hadii uu ku yimaado diyuurada ama dhinaca badda waxa caadada ay tahay in duuliyaashu ay u sheegaan xujayda marka la marayo miiqaadka si ay u labistaan ihraamkii ayna u niyeystaan waxaana aad u fiican in xujaydu inta aanay gurigooda ka soo bixin isa soo daahiriyaan si ay hadhow ugu fududaato ugudagalka acmaasha xajka waxaana xaajigu marka miiqaadka la soo galo uu bilaabaya talbiyada iyadoo kor loo qaadayo waana ragga oo kaliya dumarku hoos ay u talbiyeysanayaan دون النساء الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك markaad xirato umrada waxa walaalkayga xaajiga ah ka mamnuuc noqonaya arrimo badan oo loo yaqaan maxduuraadka ihraamka oo ah waxyaabo la isu diidan yahay waxaana kamida waxyaabahaasi qofka xaajiga loo diiday in la jaro timaha ama la gooyo cidiyaha laakiin qofku isagoo ula kasin ama ka jaahil ah ama aan xukunkeeda garanayn hadii ay timaha ama cidiyuhu ka go'aan wax dhib ah kuma sugna waxa sidoo kale la diiday in la udgiyo dharka ihraamka wax dhibasa male wixii ka haray udugii hore ee ihraamka ka hor aad ismarisay lama ogola ugaadha beriga in loo qasdo ugaarashadeeda la didiyo ama lagu caawiyo qof ugaarsanaya sidoo kale geedaha dhirta cagaaran ee xaramka lama ogola in la jaro arintaanina waa mid ay ka sameeyeen xaajiga iyo qofka aan xaajiga ahayn lama ogola in la qaado baadida xaramka ama wax lumay ee yaala wadada ilaa inaad baafinayso ama aad geenayso meelaha loogu talagalay mooyaane qofka muhrimka looma ogola inuu gabar doono ama wax uu nikaaxiyo ama loo nikaaxiyo sidoo kale looma ogola u galmoodka dumarka inta la xarman yahay ama wax kasta oo kicin kara shahwada qofka waxa dumarka iyaga u gaara inta ay xarman yihiin inaanay xiran karin khufaasaynka gacmaha la gashto sidoo kale looma ogola niqaabka iyo burqaca laakiin rag haduu soo agmaro khimaarkeeda ay madaxa ku dadanaysaa lama ogola in madaxa lagu dado go'a ihraamka ama shay kale oo ku dhagan laakiin haduu xaajigu dallad qaato ama saqafka baabuurka hoos harsado ama alaab madaxa uu ku qaado wax dhiba male hadii qofka madaxiisa uu dado isagoo aan isogeyn ama ka jaahil xukunkeeda dhib ma lahan laakiin marka uu xusuusto ama la xusuusiyo ayuu ka qaadaya lama ogola in la xidho sidoo kale shaar ama wax ku tolan oo sawiraya jirka sida saraawiisha funaanadaha nigiska cimaamadaha khufka iyo wixii lamada iyo koofiyad hadii xaajigu ay labada go surwaal ayuu markaa xiran karaa sida haduu kaba saandala uu waayo uu khufka u xiran karo waxa u banaan xaajiga inuu xirto dacaska kabaha saandalka faraatiga oo kiyaale saacad iyo dokumentiga lagu xafito baasaboorada sidoo kale waxa qofka xaajiga ah u banaan inuu qubaysto oo madaxa dhaqo wixii tinay ka go'ana wax dhiba ma lahan waxa u banaan hadii dhaawac uu soo gaaro inaanay waxba dushiisa ahayn sidoo kale dharka inuu bedesho oo kuwa nadiif ah uu ku bedesho ihraamka ama xarmashadu ma lahan salaad u gaara sida ay u maleynayaan dad badan sidoo kale waxa qofka xaajiga la gudboon inuu ilaaliyo dhamaanba waxa waajibaadka Ilaahay ku faradeelay sida salaada oo waqtigeeda iyo jamaaca lagu tukado ka fogaanshaha macaasida iyo dunuubta sida hadallada xunxun fusuuqa iyo dooda sida ay muslimiinta kalaba arintaasi dhamaan waajib ugu tahay waxaanu safarkii ku soo galnay Makka al-Mukarrama oo ku yaala beedkii Allah ee Atiiqa ahaa marka uu qofku soo galo masjidka xaramka sida caadiga ah ee masaajida waxa uu ku hormarinayaa lugtiisa midig isagoo leh a'uudu billahi al-azim
ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك دعاء سنة دمان مساجد أيا إسكاله دبيض وحاو آديا دنك كعبدا isagoo gudagalaya dawaafkii sunnaduna waxa weeye marka dawaafkaasi uu gudagalaya inuu sameeyo waxa loo yaqaan itibaaca waana dawaafkan ugu horeeya waana inuu muhrimku uu baneeyo garabkiisa midig isagoo go'aysa ka hoos marinaya kilkishiisa midig isla markaana labadiisa daraf ka hoos bixinaya garabka bidix dabadeed waxa uu bilaabayaa dawaafka oo ah 7 wareeg isagoo ka bilaabaya xajarul aswadka marka uu soo gaarana xajarul aswadkaasi waa uu dhinkanaya haddii uu awoodo waana inuusan dadka ku dhibin jiiritaan iyo isdardartoonna sidoo kale waa inuusan xaajigu dadka caayin ama dilin waayo taasi waa gaf waana dhib loo geysanayo muslimiinta waxaa ku filan qofka in isagoo ka fog xajarul aswadka uu gacantiisa ku ishaaro isagoo leh Allahu akbar lama dhinkanayo gacanta sida dadka qaarkii ay sameeyaan dabadeed xaajiga ama qofka umraysanaya waxa uu bilaabayaa dawaafka isagoo u khushuucsan Allah oo akhrinaya quraan adkaar ama duco wixii uu doono waana inaanu xaajigu codkiisa kor ugu qaadin ducooyin gaar sida ay sameeyaan xujayda qaarkood waayo taasi waa arin dadka dib u keenaysa oo ka tashwiishinaysa khushuuci marka aad soo gaarto ruknul yamaaniga waxaa sugan in la taabto haddii ay suurtagal tahay mana ahan in la dhunkado ama la isku masaxo sida ay sameeyaan dad badani arrinkaasina waa mid khilaafsan sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii se aadan awoodin waad dhaafaysaa adigoon waxba ishaarayn amaba aan takbiir la imaanaynin waxaa sunnada ka mid a xaajigu inta uu marayo ruknul yamaaniga iyo xajarul aswadka inta u dhaxaysa inuu akhriyo ducada ah rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar sidaasuu xaajigu dawaafka ku dhammaynaya 7 wareeg kasta waxa uu ka bilaabayaa xajarul aswadka isaga ayuuna ku dhammaanaya waxaa sidoo kale sunnada ah in la ruucleeyo 3 wareega ugu horeeya dawaafka haddii ay ku suurtagal noqoto waxaa jira khaladaad ka dhaca xujayda ama muctamariinta xilliga ay dawaafka ku jiraan waxaa ka mid ah in gudaha xijriga loo galo meesha loo yaqaan marka ay dawaafayaan iyagoo u maleynaya inay taasi dawaafka ka tirsan tahay sida saxdana waxa weeye in qofkii ku dawaafa xijriga uu dawaafkiisu burayo waayo ma dhammaystirna oo waxa uu noqonayaa qof kacbada qaarkeed ku dawaafay waxaa khaladaadka ka mid ah in la masaxdo ama la isku tirtiro ama dharka lagu tiro darbiyada kacbada oo dhan ama la dhunkado maqaamu ibraahimka iyo wixii la mida arrimahaas oo dhan mukhaalafaadka la sameeyo waxaa ka mid ah in ragga iyo dumarku ay isku buurtaan marka ay dawaafayaan ama la isku jiro taasi oo dhibaato keenaysa gaar ahaan xajar aswadka agagaarkiisa maqaamu ibraahimka agtiisa arrintaasina waxaa weeye arrin u baahan in la iska ilaaliyo walaalka xaajiga haw marka aad dhammayso dawaafka markiiba waa inaad dabooshaa garabkaaga midig isla markaana hadday ku suurtagal noqoto waxa 2 ragca lagu tukanayaa maqaamu ibraahimka gadaashiisa haddiise arrintaas aysan suuragal ahayn sida caadiga ahba zaxmadda awgeed meel alla meeshii firaaqa ah oo ka tirsan xaramka ayaad 2 ragco ku tukan karaysaa adigoon waxba isdhibin ragcadda koowaad waxaad ku akhrinaysaa faatixada kadib qul yaa ayuhal kaafiruun ragcadda labaadna faatixada kadib suuradda al-ikhlaas ama qul huwalla sidaasi ayaad ku dhammaynaysaa haddii aad suurado kale akhrisana wax dhiba kuma jabna فلا بأس في ذلك intaasi marka ay dhamaato kadib waxaad u baxaysaa safa si aad u samayso sacyiga oo ah 7 wareeg marka aad ku soo dhawaato safa waxaad ka bilaabaysaa midii ilaahay uu ka bilaabay adigoo oranaya inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tadawwa khayran fa inna allaha shakirun alim وبح دبدد dhinaca safa oo qaabil qiblada Allah ummahad celi oo 3 goor takbiirso adigoo gacmaha kor u taagaya isla markaana ku celceli ducada ah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa lahu ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu waxana ducadan lagu celinayaa 3 goor isagoo inta u dhaxaysa ducaysanaya hadduu intaa ka yar ku gaabsadana wax dhiba ma lahan gacmaha kor looma taagayo ilaa la ducaysanayo mooyaane lagumana ishaarayo waxba dhinaca kacbada
arrintaasina waa mid ka mid ah khaladaad